غيب شيء مناسبة وين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحرب مركو هرينا كل لابو بهد علين كلي اللابا ونيتي إذا كسو قوضي وهذه كسبتين وناقة يجعلك يولات النمذا هذه موجسين يوم يوغو الريان مامك الدقمدة يحلمدة يقلبها كليه الدقمدة إن هل كانت تأكيدين يدو مالي شغو يدو مالي وحبرشو يدو أنوغنا هيدك الدقاء كانين يدكم مشغول سن شو فاها مادية يمد دينها يتعب مسؤوليات يبحوها شغل بدشو إن الأولي اللي يردنوا سوديسين إن أنيقا يوقتك إلى سعودات كراميسان وهل كان النوت مادان إذنكو أنكسو تغن قف وأيين قف حنوسان يعرور منا تاسو وحال كان كو أرقني مركا وحان لي جزاكم الله خير هذا يدوم حسنتهين وأنا فرحت قلين إيسان وأنا نكرسوني قلين إيسان سودويتا أنا سودويسين انت اسكسكو سعودال كان idinku gudnimadaaniga iyo waqtiga ila socda waa socdaal dheer oo socday maanta maalintii afaraad socda waxaan ka soo bilownay hobyo waxaan soo marnay gaalkacyo waxaan tagnay cadaado maantana waxaan joognaa baxdo insha Allah taala safarkaas oo aan doonayno in deegaanada iyo dadka aan ku metelno dawladda Soomaaliya aan soo booqano u nimaadno duruufahooda ogaano xaaladaha ay ku nool yihiin ogaano kadib waxaan la qaban karno la qabanno isla markaana waxa naga dhiman aan kala yeelano wada tashi iyo tala wadaag taas waxay ahayd aragtida koowaad waxa ugu weyn ee bini'aadamku u baahan yahay waa inuu xogta isticmaalo waa inuu tashado waa inuu aqliga iyo xuduudda mideeyo weeyaan taas ayaa waxa dhala wax qabadka dadaal kasta anigoo runtii og sida dadka ku nool magaaladan ay u yihiin dad ku nool isku tashi oo midaysan oo quluubtooda iyo muruqooda ay midaysan yihiin taasoo laga garan karo sida magaalada qodobka haystaan loo hormariyey iyadoo oo maaragtay aan ku xusuusanaya magaalada sida markasta albaabkayga ay u soo garaacaan aniga oo wasiira iyo aniga oo aan wasiir ahayn intaba ay ugu imaan jireen dhallinyarada iyo culummada magaaladan iyagoo wada waxyaabo khayri ah oo dhismo masaajid ay ka mid yihiin oo dhismo cusbitaal ay ka mid yihiin oo iskuulle ay ka mid yihiin waa dad runtii sidaas danta guud uga shaqeeya marka inaan idiin imaado oo wixii awood iyo aragti aan leeyahay aan idinku soo biiriyo waa hadafka koowaad hadafka labaadna waa midda laga shaqariyey aanan rajaynayo in dad badan ay og yihiin oo ah inaan imaado halkan oo aan ku leeyahay laba abtiris oo waaweyn oo ah labada insaanka ugu qaalisan abtiriskooda abtiriska koowaad waa midka dhalasho waa meesha xuduntaydu ku duugan tahay waa meesha awowgay ku duugan yahay waa meesha adeeraday ku duugan yihiin waana meesha ay hadda joogaan waxaan ku dhashay isla deegaankan oo xuduntaydu ay ku aasan tahay sidaas ayay maaragtay abtiriska koowaad oo ah xagga nasabka aan ugu abtirsadaa degmada baxdo midda labaadna waa abtiris diimeed barbaariyeen inaan laba abtiris leeyahay abtiris dhalasho iyo abtiris diineed taasoo runtii iga saaciday ilaahayna subxaanahu watacaala aan uga mahad celinayo iyo waalidkay in aanan muxuu ahaa khaladaadka diimeed muxuu ahaa wax badan oo ka mid aan ka badbaado xarig adag iyo jid adagna aan haysto kaasoo ku abtirsada magaalada baxdo marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay anigoo labadaas abtiris wata inaan idiin imaado anigoo u sharaxan xildhibaan qaran oo doonaya inaan idinku metelo baarlamaanka Soomaaliya waxaan markaa idiin soo doontay duco waxaan idiin soo doontay taageero waxaan idiin soo doontay idinka codkaysiiya idin malihiyo kalsooniya ku qaba inay siinaysaan inaad deegaanada kale gala doontaan insha Allah taala maadaama si guud aan u ahay wiilka dhammaan dadka deegaanada ee kursigan iska leh si gaar ahna aan wiilka reer baxdo u ahay waxaan doonayaa ducadiina iyo garab istaaggiina iyo taageeradiina oo maanta aad ii muujiseen waxaan kaloo marti idinkaga ahay inaad garwadeen ii noqotaan oo dadka kaleeto oo kursiga idinla leh aad igala doontaan insha Allah taala doonistayda kursigan waqti bay soo socotay maanta dabcan jufooyin baa lagu dooranaya oo waa la kala leeyahay saameynna way isku leedihiin laakiin insha Allah taala doonistaydu ma aha mid ku doonista maanta ah waa mid salkeedu fog yahay waa mid aan doonayo marka dhammaantiin aad awoodi doontaan إن شاء الله تعالى إن ربيتان كينا
waxa aad rabtaan aad ku doorataan waxa aadna rabin aad ku diidaan ayaan rabaa in mustaqbalkaas soo socda aan horudhac u noqdo oo muxuu ahaa aan halka ka sii bilaabo ololahayga maanta iyo midka 20 sano 30 sano ee soo socota haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala cimrigeenna uu gaarsiiyo marka sidaad igu muujiseen taageeradiinna aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin marti baan idiin ahay waxaan marti idinkugu ahay oo aan kursiga u doonayaa waa inaan idiin adeego waa inaan difaaco laba waxyaabood oo ah sharafka iyo qiyamka aad u taagan tihiin ee waqti badan aad soo difaacdeen ee cadow badan aad ka ilaaliseen haddana u baahan dalladda uu harsanayo in la sii adkeeyo oo dhidibada loo sii aaso in adkaynta qiyamka degmadan iyo muxuu ahaa sharafkeeda aan qayb weyn ka qaato oo meelo culculus oo aad u baahan tihiin codkiina in la geeyo aan geeyo midda labaadna waa inaan idinkala shaqeeyo dhammaystirka adeegyada idiin bilaaban iyo gaarista himilooyinka aad leedihiin ee aad doonaysaan in magaaladiinna iyo deegaankiinna aad ku qurxisaan haddii aad i taageertaan waxaan idiin ballan qaadayaa insha allahu tacaalaa inaan noqon doono wiilkiinna oo idinla jooga oo idinka mida inaan noqon doono xorow ka tirsan jameecada magaalada oo aan ka tirsanahay insha allahu tacaalaa inaan ku shaqayn doono fikirkiinna iyo rabitaankiinna oo ah midaan maanta ugu bilaabanayna waqti hore laygu barbaariyey oo aan ku soo koray insha allahu tacaalaa inaan ahaan doono mid idin dhex fadhiya oo aan idiin imaanin marka uu kursiga soo doonto insha allahu tacaalaa waxaan ahaan doonaa mid sii og inaad rabtaan iyo inaad diidan tihiin waqti ka horreeya doorashada si aan u awoodo inaan cilladahayga daaweeyo insha allahu tacaalaa waxaan rajaynayaa in taageerada halkan aad igu taageertaan iyo qaadista halkan aad iga qaadaan ay soomaaliya oo dhan wax u tarto ma aha baxdo oo keliya sababtoo ah waxaan aaminsanahay inaan leeyahay hadaf iyo aragti qaran oo haddii adinku aad idhaafisaan buundada aan awoodi doono inaan dadka soomaaliyeed guud ahaan ugu adeego idinkuna aad noqon doontaan meesha uu ka soo baxay ama uu ka soo jeedo wiilkaas soomaali wuxuu tari doona insha allahu tacaalaa taasi waxay ku salaysan tahay khibradda iyo waayo aragnimada aan ka helay dhowr iyo 10 sano oo dowladda soomaaliyeed aan u soo shaqaynayey oo aan ku ogaaday waxa ay soomaaliya u baahan tahay in laga daweeyo waxa ay soomaaliya u baahan tahay in laga diido waxa ay soomaaliya u baahan tahay in loo doono waxa ay soomaaliya u baahan tahay in laga difaaco iyo waxa ay soomaaliya u baahan tahay in loo difaaco oo dhammaantood aan fahansanahay marka insha allahu tacaalaa meeshan waa meel culumo waa meel khayr waxaan dhammaantiin idin weydiisanayaa inaad faataxada igu martaan oo aad iigu ducaysaan haddii damacaygaasi uu yahay mid khaalis ah oo ii wanaagsan oo aan wanaag iyo khayr ku doonayo ilaahay inuu ii sahlo haddii uu shar iyo dhibaato iyo xumaan naftayda iyo aakhiradayda iyo idinkaba idiin yahana ilaahay inuu dhinac marsiiyo waxaan idiin ballan qaadayaa haddii aad i doorataan waa mahadsantihiin haddii aad i diiddaan oo qof iga habboon doorataanna inaan la shaqeeyo oo wiilkiinna aan ahaado oo aragtidayda isaga aan ku biiriyo intaa ka badan ma doonaya hadalka inaan idinku sii dheereeyo bacad ayaa taagantihiin qorrax ayaa taagantihiin daniini ayaad soo dayacdeen aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin codsiga iyo talada maamulku ii soo jeediyeen oo ah inaanan deegaanka ka degdegin waa aqbalay insha allahu tacaalaa waa kala war qaadanaynaa waa idinla joogaa aniga aan xog dhammaystiran haynin insha allahu tacaalaa idinkaba tegi doona waxaan rabaa si gaar inamada qaranka ee halkan u jooga difaaca qarannimada soomaaliya iyo si gaar ah qiimka magaalada sababta ay baxdo u degan yihiin waa ka fog tahay sababaha ciidamadu ay meelo badan u joogaan marka waxaan idinkan idin weydiisanayaa ciidamadaas naftood horayaasha ah ee carruurtoodii ka soo tegey ee waalidiintood ka soo tegey ee xaasaskoodii ka soo tegey ee wixii ay u baahnaayeen aan haysanin ee duruufo badan ku sugan inaad laba waxyaabood ku taageertaan ducada inaad ku taageertaan ood ku garab istaagtaan iyo midda labaad oo ah ruuxda magaaladan waxay ka nooshahay waa ruuxda iyo quluubta ciidamadeennuna waxa ugu weyn ay u baahan yihiin maanta in laga dhiso waa ruuxda iyo quluubta waa si gaara culimmada u weydiisanaya in ciidamada ay dhex fadhiistaan oo ay wacdiyaan oo ay u sheegaan in haddii dad jihaadaya oo ilaahay dartii u taagan ay yihiin kuwa u taagan inay badbaadiyaan naf oo ka difaacaya kuwa doonaya inay naftaas biqayri xaq ku gooyaan iyadoo loo sheegayo dulmiga yacni ilaahay agtiisa shanta ciqaabood oo waaweyn ee ku soo aroortay qofka naf muuminada si xaq oo la aaminsiiyo oo la geliyo
rafaadkan iyo qorraxda iyo duruufta iyo dhaqaale yaridana uma adkaysan kari doonaan marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa ogahay inaad taageersan tihiin waa ogahay inaad garab taagan tihiin marka intaa ayaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo jazaakum allahu khayr